daawade halkan waa xogta qarsoon muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa Tigray oo bililiqeysatay mucaawino loo waday gobolka Amxaarada maxay tahay sababta beesha caalamka oo arintaas ka hadashay diiwaangelinta ku celiska oo ka bilaabatay degmooyinka dowlad deegaanka Soomaalida qaarkood mudaharaadyo xoog leh oo ka socda gobolka City ee dalka Itoobiya xaaladda gobolkaas oo aad loogu deerinayo colaadda Soomaalida ee Canfarta oo saameyn xoogani ku yeelatay qayb kale oo kamid ah wax soo saarka dalka Itoobiya muuqaalkan ayaan ku soo koobi doonaa daawade haddii ay tahay markii ugu horreysay janaalka ku soo gaaro bartan waa xogta qarsoon magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed waxaan ka codsan lahaa inaad ka mid noqoto saaxiibada oo aad janaalka subscribe saarto hagaag Tigray waxay bililiqeysteen mucaawino loo waday gobolka Amxaarada ciidamada Tigray ayaa waxa lagu eedeeyay inay bililiqeysteen mucaawino loo waday gobolka Amxaarada taas oo hadda go'doon u galay ciidamo ka socda gobolka Tigray Itoobiya waxay bililiqeysteen gargaar bini'aadanimo oo dowladda Mareykanka ay ugu talagashay gobolka dariska la ah Amxaarada sida uu sheegay madaxa howlgalkaas qowmiyadda Tigray ayaa ka jawaabin eedeymaha loo jeediyay madaxa USAID Itoobiya ayaa u sheegay telefishinka dowladda in dagaalyahanada Tigray ay faaruqiyeen bakhaaro ay ku jireen raashin loogu talay gobolada Amxaarada wuxuu sidoo kale ay qaateen gawaari waaweyn ayuu raaciyay toddobaadkii hore saraakiisha Amxaarada ayaa ku eedeeyay ciidamada Tigray inay dileen ku dhawaad 40 qof oo rayid ah isla markaana ay burburiyeen iskuulada iyo isbitaalada iyo xarumihii kale ciidamada jabhadda Tigray oo muddo 10 bilood ah la dagaalamayay ciidamada federaalka iyo xulafadooda ayaa waxay dagaal ku qaadeen meelo ka baxsan gobolka iyadoo u sii gudbay gobolada dariska la ah Amxaarada iyo Canfarta Tigray waxay go'doon gelisay gobolka Amxaarada oo ah kuwa aad ugu kulul marka la fiiriyo Canfarta ayaa dagaal xoogani isaga celiyay sida wararku ay sheegayaan ciidamada Tigray Amxaaradu waxay taageero ka helayaan ciidanka federaalka Itoobiya taas waxay tahay sababta ugu weyn ee Tigray u qabsan laadahay gobolka Amxaarada balse sida loo ogyahay Tigray waxay qabsadeen qaybo kamid ah gobolka Canfarta taas oo keentay in awoodda Canfarta hoos loo wiiqo Canfarta sidoo kale waxa caqabad ku ah dagaalka ay kula jirto dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City taas ma awood in laba dagaal ay la gasho laba qowmiyadood oo Soomaalida iyo Tigray oo la dagaalamaya Mareykanku waxa uu Tigray ku eedeeyeen inaysan maqal baaqka qaramada midoobay ku aadan xabajoojin sida daraadeed markan ay soo jeesteen inay sameeyaan xadgudubyo ka dhan ah bini'aadanimada sida in gargaar bini'aadanimo la joojiyo sidoo kalena ay bililiqeystaan Tigray waxay kala hor sheegtay in haddii ay dagaal diyaar u noqdaan aysan jirin cid celin karta sida daraadeed waxay marar badan isku dayeen in arrinta la xalliyo balse afyeenka Tigray Gedewa Redo oo dhawaan hadda waxa uu sheegay in Tigray aysan joojin doonin gulufka ay wadaan ilaa Addis Ababa ay gacanta ugu dhigaan sida daraadeed waxa muuqata in Tigray hadda aysan u aabayeelayn gargaarka iyo sidoo kale dumarka warbixin soo baxday dhawaan waxa lagu sheegay in Tigray ay dumar badan kufsadeen taas waxay ahayd mid kamid ah baaqyada ka soo baxday qaramada midoobay laguna eedeeyay in xadgudubyo ay ku tahay beesha caalamka iyo sidoo kale in dowladda Itoobiya arintaas aysan waxba ka qaban haddaba xaaladaha sii kordhay dalka Itoobiya waxay saameyn ku yeelatay guud ahaan dalka waxaana dhacday in qaybo kale oo kamid ah dalka macaluul iyo sidoo kale nafaqadaro loogu dhinto inkastoo gobolka Tigray aysan tageen wax gargaar ah haddana waxa ay beesha caalamka iyo xubnaha Mareykanka isku dayayaan in gargaar hor leh gaarsiiyaan gobolada ay ku jirto gobolka Amxaarada iyo Canfarta taas maanta waxa mar kale ka biidiiday Tigray oo sheegtay haddii iyadaan gargaarka la siinayn ay ku khasbanaan doonaan in gargaarada kale ee gobolada kale loo wado ay dhexda ka galaan dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in xaaladda ka jirta gobolka Tigray tahay mid halis ah sababna ay u tahay Tigray maadaama ay diideen hubka ay dhigaan ayna ogolaadaan in dowladda ay taageeraan Tigray waxay ku adkeysanaysaa in dagaalka ay sii wadi doonto ilaa Amxaarada Canfarta Oromada dhulka ay marsiyaan ugu dambeyntiina gacanta ay ku dhigaan Addis Ababa waxa kaloo xusid mudan inay jireen ciidamada Tigray wadooyinka lagu gudbo Suudaan Amxaarada iyo sidoo kale Kenya taas waa saameynta kale dalka Itoobiya guud ahaan Itoobiya ma jiro wax horumar ah oo ka socda marka la fiiriyo gawaarida isaga kala gudbi jirtay dalalka Suudaan iyo Itoobiya iyo sidoo kale Suudaan Kenya iyo Itoobiya saameyn guud ay guud ahaan dalalkaas ku yeelatay haddaba xaaladda sii kordhaysay dalkaas waxay keentay in colaad kale ay ka bilaabato gobolada Soomaalida iyo Canfarta gobolka City ayaa kamid ah gobolada ay dagaalada xoogani ku socdeen gaar ahaan deegaanka Garbaciise wararka ka imaanaya gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa sheegay in halkaas ay ka socdaan mudaharaadyo loogu soo horjeedo colaadda ka socota Suudinta u dhaxaysa deegaanada Soomaalida iyo Canfarta ee Garbaciise isla markaana lagu dalbanayo in aagaas dad badan laga soo barakiciyay deegaamadooda
mid ka mid ah dadka halkaas ku sugan ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu ay kasii darayso marmarka ka dambaysa shacabka ayaa bannaanada jiifa gobolka City kuwaas oo isugu jira Soomaaliya Canfar waxaana jirtay in shacab kale oo badan ay dagaalkaasi ku dhinteen dowladda federaalka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu wajahaya xaalada cakirnaan ah taasi waxay u keentay walwal uu ka muujiyo xaaladda guud ee guud ahaan dalka Abiy Ahmed oo ku khasbanaan doona in talada uu ka dago ama waxa uu sameyn doonaa tallaabooyin kale oo ku xalinayo xaaladaha ka taagan Tigray Amxaarada Canfarta iyo Soomaalida inkastoo Tigray dagaalkeeda ay dawladda ku jirto haddana dagaalka kale ee Canfarta iyo Soomaalida waxa uu yahay mid aysan dawladda federaalka waxba ka qaban karin maadaama xad la isku haysto xadkaas oo kol hore ay bixisay dawlad deegaanka Soomaalida ka talin jirtay Cabdi Maxamed Cumar Cabdiile Soomaalidu waxay hadda tilmaamayaan in Garbaciisa iyo deegaanada kale ay tahay dhul Soomaaliyeed si daraadeed aan la siin karin Canfarta dawladda federaalka Itoobiya waxay u xaqiijinaysaa Canfarta taasi waa waxa uu ku lumin karo Abiy Ahmed taageerida shacabka Soomaaliyeed oo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku nool haddii Abiy uu lumiyo shacabka Soomaalida isagoo hore u lumiyo Tigray qayb ka mid ah Oromadana lumiyay waxa kaliya taageero u kaysan kara Amxaarada iyo qowmiyadaha kale ee yaryar ee ku nool dalka Itoobiya oo ka mid ah wadamada awoodda badan ee qaaradda Afrika hadda wuxuu dhexda kaga jiraa xiisad dagaal iyadoo taasi ay jirto waxaa xusid mudan in colaadda Soomaalida ay saameyn xooggan ku yeelatay wax soo saarka milixda laga keeni jiray tuulada Godbo Cusbo ee dawlad deegaanka Soomaalida gudoomiyaha iskaashatada cusbada ee Godbo Cusbo Shaafici Cabdishakuur ayaa waxa uu warbaahinta uga hadlay saameynta ka dhalatay isagoo sheegay in guud ahaan gobolka aysan waxba ka dhoofin sida daraadeed uu ku baaqay in dagaalka la joojiyo waxaa xusid mudan in dawlad deegaanka Soomaalida ay taageerayso maleeshiyaadka Soomaalida ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka Canfarta inkastoo ay Mustafa Cagjar dagaalku kala dhex galo haddana waxa uu ka diidan yahay dhul Soomaaliyeed la qabsado sida daraadeed ciidamo badan oo Liu Police ayuu ku qabay ciidanka Garbaciisa ka dagaalamaya Canfarta dhankoodana waxay taageero ka helayaan Amxaarada iyo dawladda federaalka Itoobiya taasi waa awood xooggan hadda ay helayaan Canfarta walow Garbaciisa si aad ah loogu dagaalamay dad badan ay ku dhinteen haddana marba ma ogola dawlad deegaanka in dhulkaas gacanteeda uu ka baxo waxaana wararkii ugu dambeeyay halkaas laga helayo ay sheegayaan in xaaladdu ay degan tahay walow maalmihii u dambeeyay dagaalka halkaas ka dhacay uu ahaa mid xooggan welina maleeshiyaadka dagaalamaya isku horfadhiyaan haddaba iyadoo ay taasi jirto diiwaangelinta ku-celiska ayaa ka bilaabatay degmooyinka dawlad deegaanka Soomaalida qaarkood qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya waxaa laga bilaabay bixinta kaararka codbixinta doorashada lixaad ee deegaanka oo lagu wado inay dhacdo 30 bisha September codbixinta magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka lagu arkay dad aad u badneen ee kaararka qaadanaya iyadoo laba xisbi oo mucaarad ay qaadanayaan ka qayb qaadashada doorashada dadkii ka qayb qaatay doorashada waxay sheegeen inay u diyaariyeen doorashada ay qabtaan walow dawlad deegaanka arintaas ay walaac ka muujinayso maadaama dagaal xooggan ay kula jirto Canfarta hagaag daawadayaal muuqaalkeeni dalka Itoobiya kaga hadlayna waa naga intaas nabadgelyo